wariye cali aadan muumin oo ka tirsan warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho ayaa saaka la xiray xarunta dambi baarista ee CID-da kadib markii looga yeeray. cali aadan muumin ayaa shalay la soo gaarsiiyay warqad looga dalbanayo inuu xarunta yimaado, waxaana markii uu saaki xarunta CID-da tagay lagu wargeliyay inuu dacweysan yahay oo uu xiran yahay. warar hoose oo helayo Daafur TV ayaa sheegaya in laga qaaday taleefanadii gacanta uu ku watay, waxaana inta aan laga qaadin taleefanada uu la xiriiray warbaahinta uu ka tirsanaa kuna wargeliyay inuu xiran yahay. cali aadan ayaa sheegay in dacwadda ka gudbisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, lama oga nooca dacwadaasi ay tahay. hase yeeshee waxay wasaaraddu la kulmaysay dhaleeceen kala duwan ee ku aadan imtixaankii fashilmay iyo qishkii imtixaanka oo suuqyada galay. wariye cali aadan muumin ayaa ka mid ah wariyeyaasha ugu caansan ee wax ku qora baraha bulshada sida Facebook-ga. ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay hay'adda dambi baarista dowladda oo fulisay xarigga wariyahani. dhanka kale, xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa cambaareeyay xarigga wariye cali aadan muumin oo ka tirsan warbaahinta goobjoog kaasoo saaki lagu xiray xarunta dambi baarista ee CID-da. cabdiraxmaan odowaa ayaa sheegay in xarigga iyo cagajuglaynta saxaafadda ay tahay calaamado aanan u fiicnayn dowladnimada Soomaaliya. waxa uu sheegay, waxaan cambaareynayaa xarigga loo geystay wariye cali aadan muumin oo ah wariye dhalinyaro ah kana tirsan raadiyaha goobjoog. xarigga iyo cagajuglaynta saxaafadda waa calaamad aan u fiicnayn dowladnimada Soomaaliya, ayuu yiri xildhibaan cabdiraxmaan odowaa. xildhibaanka ayaa ku baaqay in hay'adaha amniga xukuumadda Soomaaliya ay wariyaha si degdeg ah u sii daayaan. saaka ayaa ahayd markii wariye cali aadan muumin lagu xiray xarunta dambi baarista kadib markii halkaas looga yeeray oo ay dacwad ka gudbisay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta Soomaaliya. maxamed cabdirashiid xasan, Daafur TV, Muqdisho.